habka casriga ah ee loo dhaqdo xoolaha ee loo yaqaano modern livestock farming wuxuu ka duwan yahay dhaqankii xoolo dhaqashada Soomaaliyeed. Wuxuu xooga saaraa kordhinta wax soo saarka, ilaalinta caafimaadka xoolaha iyo faa'iido ujeedada ah oo dhaqaale leh. Habka casriga ah wuxuu leeyahay dhowr astaamood: quudin isku dheelitiran oo loo yaqaano balanced feeding. Xoolaha waxaa la siiyaa calaf la isku sameeyay protein, carbohydrate, vitamins iyo minerals. Waxaa la adeegsadaa cunno la farsameeyay sida concentrates iyo supplements. Cuntooyinka waxaa loo qorsheeyay sida loo gaaro wax soo saar sare, caano iyo hilib ama koritaan. Xanaanada xoolaha waxaa loo isticmaalaa talo joogto ah si looga hortago cudurro. Dhaqaatiirta xoolaha ayaa kormeera caafimaadka xoolaha si joogto ah. Xoolaha buka waa la go'doominaa si aysan cudur ugu faafin kuwa kale. Taran la maamulo waxaa la adeegsadaa xulasho tan si loo helo xoolo leh wax soo saar fiican. Waxaa sidoo kale suuragal ah in la isticmaalo bacrimin macmal ah si loo helo dhal badan oo tayo sare leh. Goobo casri ah oo xoolaha lagu dhaqo waxaa la dhisayaa xirooyin nadiif ah, ilaalinta kuleylka iyo qabowga. Waxaa lagu rakibaa nidaamyo waraabin calaf siinayo nadaafad ah automatic ah. Goobahaasi waxay yareynayaan khasaaraha waxayna kordhinayaan tayada xoolaha. fadlan intaan haddana la soo joogto muuqaalka like saar asxaabtaadana u share garay mahadsanidin.